Haddaad ku riyootid riyooyinka noocan oo kale ah, naftaada ayaad ka shakinaysaa, cibaadadaada ayaa ka shakinaysaa, kurbo iyo welwel ayaa kuu bilaabanayso. Riyooyinka laga yaabaa markaad ku riyootid kabacdi inaad hataa hurdada dib ugu noqonin. Riyooyinka maxay yihiin? Haddaad ku riyootid oo riyo ku aragtid sixiroole mise faaliso, labadaba waa laba rabbi u shirki yeelay wacayaadu billaah, cidna ma jeclaysanayso inay riyo ku aragta. Micnahooda ayaa halkaa kusoo koobi doonaa labadaas riyo insha allah ila socda. bismillaah, salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Qofka hadduu ku riyoodo faaliso, adoo la joogo qof faalisaa mise nin faalisaa, aragtida faaliso waxay tilmaamaysaa diin yari. hadday cibaadadaada yar tahay mise iimaankaaga yar yahay way ka turjumaysaa middaa. waxay kaloo ka turjumaysaa bini aadan munaafiq ah, beenlow ah, hadalkiisana run loo malayo laakiin waxba aan ka jirin inuu noloshaada ku jiro. midaan way ka turjumaysaa. aragtida faalisada waxay kaloo tilmaamaysaa adduun, jacayl adduun inaad in badan aad u qabtid oo tii aakhiraad ilaawday. waxay kaloo tilmaamaysaa dadka isqaboo kale mashaakil, fitno. waxay tilmaamaysaa gabadhaan la guursanin oo kale inay ashqaas aan wanaagsaneyn, sumcaddooda fiicneen, ay asxaab la tahay, laga yaaba inaynan ogeen. waxay kaloo tilmaamaysaa hadal, matalan inaad tahay qof hadal qaado dadka isku diroo kale. haddii noocaasaa tahay oo riyadaasoo kale aragtid, dib iskugu noqo, yani naftaada dib ugu noqo. waayo ani riyadan ugu riyooda. riyooyinkanaytib ma wanaagsana. adoo arkaayo faalisoo kale ma wanaagsani, adoo saaxir arkaayo. gabadha laga dhintay iyo gabadha garoobka ah, aragtida faalisada mise faaliyaha hataa aanba dhahno, haddaad riyo ku aragtid waxay tilmaamaysaa khayaanooyin badan, dad yani aad kala kulmaysid. waxay kaloo tilmaamaysaa xasad inuu jiro mise diiqado iyo mashaakilo. yani aragtideeda maba wanaagsana. faaliyaha mise faalisada aragtidooda ma wanaagsano. inkastoo insha allah muuqaalo kale aan kasoo sameyn doonaa. hadda waxaan u gudbi doonaa qeybta saaxirka. Number 1 aan ka bilaabo arrin aad muhiim u ah, taasoo ah haddaa riyo ku aragtid adigoo sixir sameynayo, adiga ayaa waxaad noqotay sixiroole. wacayaadu billaah, yani tabcan waa riyo xanuun leh. riyada ficlan fasirkeedana ma wanaagsano. waxay tilmaamaysaa dhibaatooyin badan. maadaama fasirkeeda aan wanaagsaneyn kuma sii fogaanayno, laakiin ujeedkan u wadana maxay tahay, haddaa riyada aa aragtidoo kale xagga rabbigaaga in badan dhawaaw, rabbigaaga cibaado iyo istikfaar iyo maxaad inuu riyada sharteeda dhinac kaa mariya ku duceyso. riyada saaxirada mise saaxirka, haddaa riyaad ku aragtid in badan kama duwana riyada faalisada mise faaliyaha. haddaa riyo aad taa ku aragtid oo kale, waxaa macquula inaad tahay qof daacad ah, qof in badan dadka aamin, laakiin in badan la khayaano, in badan khayaano iyo been iyo dhagar iyo lagu wada inaad tahay ayaa macquul ah. naftaada dib ugu noqo. dadka kaaga dhowna markaasiti kuwa aad isleedahay kuuma wanaagsan oo kale iska fiiri. haddaad riyo ku aragtid qof cadaabe idinka dhexayso oo sixir kuu sameynayo, taa waxay tilmaamaysaa inay cadaawadiisii, xumaantiisii, uqdada kuu qabay sii ziyaadayso. aad ku riyootid adoo nin sixiroolaha la dagaalamayo mise aad dilaysid, taa waxay tilmaamaysaa ka guuleysi cadaabadaadii dad xumaa ku necbaa oo ku khayaani jiray. laagno sala walaalayaal, noona sheergareeya la wadaaga asxaabtiina. wasalaamu calaykum.